قبسومين عكسوين قفنابا قصبكي فرحة هذا خاص ها barkintaa ka qalloocatay wax kale ma jiraan waan u toosinay Soomahan Abo 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 waan ku baryaa ila hadal yaa akhi Abo هاي إيش يقول كبرياء أبا محمد إلى هذا الهاي يا أن إلف أبا أريد وده هاي أن وكبرياء إيش يقول حدث كحسوس صادقة أبا ما أفكار هالمر لك على فرابا فراس عمران أيا إيرتي عمران ويكل تورتي إلف دقيقة وآمن لا يمحودها يا أبو aabahaaga wuxuu dhahay فراس ها أبو halkan ayaan joogaa aniga aabba macana aniga hortaada ayaan taaganahay ilaa hadal aabbo waa ku baryaa hal maroo keliya ku celi aabbo wiilkayga ha qasbin soob isii daa horta hooy aan dhagaystaa beeyga aabahayga magacayga ayuu ku dhawaaqay ha wuuna ila hadlay asiga wuu fiicnaanayaa aabbahaaga insha allah isdeji amaya ditooreesada ayna haddeertaan wacaya aniga ukaada wiilkaygii marmar hadalladan wuu iskaaga dhawaaqaa adiga isdeji wuu iska fiicnaanayaa maya hooye inaan u wac waan ku khasbanahay wax walbana waan ogahay
dictor aniga arrin la yaab leh ayaan ku hayaa run ahaantii aabbaygan waxaan oo kale weligiisa kuma dhicin hay gabadheeda laakiin waan ku fahmay wax walba aniga ayaa ku fahamsiinaya dhegayso aboowe dhakhtaradda aaba maa la hadlaysaane wax dhiba miyaa jira ii sheeg bal aabba magacayga ayuu ku dhawaaqay haye aabbahaa hee ii sheeg aabbahaa wax maa ku dhacay sidee waxaan u samaynaysaani ii sheeg mideeda kale mudane jamiil adiga ayaa jaranjarada ka tuur anigana wax walba waan ogahay waxaad og tahay ma lahan waaye aniga firaad hadda waan ka aamusa balse waan u tagayaa wax walbana aan u sheegayaa kaalay waa ku baryaa gabadheeda ha u sheegin ha i sheegin idaa sabab aan kuu qarinayaa ii sheeg banaag ninkeeda rabtay inay disho weliba jaranjarada ka tuurtay maxaas iskugu kalifay maxaad u samaysay sababtoo ah haye hadal aabbo aabbeegaan jeclaa maantadeeda dictoreesada aniga waa aan la hadlay waddada ayay ku soo jirtaa waxyar kadibna wayna imaanaysaa aabba muxuu dhahayna aabba muxuu dhahay aabba magacayga ayuu ku dhawaaqay maanta adig kaaga mu kuugu wacay aniga waxataa ima dhihin miya garabkiisa ayaan taagnaa sidaas darteed ayaan ugu dhawaaqay aabbo waa ku baryaa soo kac garkaaga haysta aabbo waxaan rabaa hadalkaaga inaan maqlo aabbo gabadhaada waxay rabtaa laabtaada inay gasho aabbo insha allah wuu soo kacayaa waxaan u malaynaa adiga inaad saamayn ku yeelatay hadeertaanana keen dharka ayaan kaa soo beddelaya kadibna waad soo laabanaysaa soo baxay iliif gabadheeda iliif marwe cimraan aniga waxaan rabaa hadalkeen inaan soo afjaro gabadha ayaan dharka ka soo beddelayaa kadibna beerta aynu iskugu imaanaynaa meeshaas ayaan ku wada hadlaynaa adigii iida maxaa ka wada hadlayseen mideeda kale ka waranbo mudane jamiil hadduu soo kaco maxaa dhacaa maafiis su'aalaha badan iga daa diyaaru ma ihi sugba bal ka waran hadduu soo kaco oo wax walba uu sheego kadib anugu maxaa samayhaynaa macantadeeda maanta ciyow ayaad bi imaatay maxaa dhacay iyaa xanuunsanne macallimadaada ilaahay ha caafiyo macantadeeda wax dhiba ma jiro aniga waan caafimaad qabaa hadeertaan macanta aniga shaqayar ayaan leeyahay adigana qolkaada ku sii ciyaar waana kuu soo laabanaya haydhe beelaa tahay bal ka waran haddii uu mar kale soo kici waayo ama uu hadli waayo abuu maxaan samaynaynaa diyaal wax walba ay soo laabanayaan laakiin hadeertaan maaha wax walba waa tartiib tartiib aabbahayga waan ku dadaalayaa wax walba ay noqoto cudurkan hayo waa inaan sida ugu dhaqsiyaha badan loogu daaweeyaa dadaal walba midaas ha igu qaadato aabban mar labaad noo soo kac annagoo dhan waan ku wada sugaynaa
cimraan sidaan inaad u xunta anigu ma maleynaynin mana isleeynin naagtaa ninkeeda ayaasaan u galaysaa maxaa kaa qaldan ninkaaga maxaa sidaan ula dhaqantane teeda kale carruurtaada hadday ogaadaan maxaad samaynaysaa ii sheeg waxaan maxaad u samaysay hadalka ma dhammaysan waxaan dhammaysta ma lahan aniga intaan ka badan isma xakamayn karo firaadna waan u tagayaa wax walba orintahana waan sheegayaa mana laga yaabo sida adigoo kale aniga doqomada inaan noqdo u kaadi waxaad ogeynayaa jiro cimraane isla caaw ayaan noqonaynaa nin inaagtiisa muddo kadib anigoo nolosha midda ugu adkeed soo maray wax walbana aan soo arkay xitaa iskuma dayin maalin u inaan qof dilo ama aan dhibaateeyo aniga xataa wixii dhacana shil ayay ahaayeen khaladna way ahaayeen gabadheed waxaad ogaataa ninkaas inaan dhibaateeya aniga ma doonin wax walbana shil ayuu ahay ku talagal mays ahan ii aamin ayaan ku dhaha qof xun aniga mihii wakhtiga ayaa xumaantay siiyey arrintaas shil ayay ahayd aniga kuma aaminaayo adigoo waxaan dhan sameeyey lagama yaabo maruu cimraan inaan ku aamino ogey kaba soo qaad shil ayuu ahaa waayahay ninkaaga mas-uuliyaddiisa maxaad u qaadi weyse maxaad u dhahda ninkaan wuu iska dhacay dumar kale inoo fahmo ayaa fiican iliif xaalad xun ayaan aniga soo maray xaaladdaa soo marta wax iiga sheeg diyaar ayaan ahay waan ku dhegaysanayaa hadalay maxaad la aamusan tahay adig haddiiba kula fududahay oo aad aamustay lagama yaabo aniga inaan aamuso u kaadi waa ku barya i dhegayso wax walba aniga ayaa kuu sheegaayo gabadheeda kaale soo fadhiisa ii soo dhowow waxaad ogaataa jamiil weligay aniga qalbigayga ma siin mana jeclaanin asaga xoog ayaa la iigu daray shaqo wacan ayaan ku leeyahay wakhtigaasna zaa'id ayaan u necbanaay waana u sheegay weligay hal habeen ma jeclaanin si kastaan wax ugu sheega aniga lee buu caddaay ninkaas orad iga taga daandhaa xataa igamoosi tegi jirin waxaan isku dayey inta saacadaa wejigayga inaan ka qariyo wakhti walbana shaqada ayaan wakhtiga ku soo dhimin jiray laakiin guriga markaan imaado qofka ugu horreeyan wejigiisa arkay asaga ayuu ahaan jiray haye soo dhowaaw cimraan shirkaddeenna maanta heerka ay gaarsiisan tahay qofka soo gaarsiiye qof kale maahan ee waa aniga waana u soo dadaalay mar kasta aan go'aansaday inaan ninkaas ka tago asaga igama haraayo wuu iga soo daba cararayaa gabadheeda dumar ayaan isla nahay ifahan ninkaas aniga wou i dhibay xoogna waa la iigu daray dhibaatadana waad dareemi kartaa qof aada ku faraxsaneen markii nolosha aad la qaybsanaysa cimraan war isiidaa hadallo xunxun ayuu i dhihi jiray xitaa afkayga ma soo qabanayo furi baabka habeenkas aniga waan cabsanaayey maalintaas kadib asaga wax ayuu sameeyey muxuu kugu sameeyeyna asaga wuu i xoogay gabadhayda ma jiraan nin xaaskiisa xoogaayo ii sheeg eliif dumarnimo ii fahan ma oggolaan lehed adiga ninka dhibaatadaas kugu sameeyey maalin kasto hortaada inuu ka soo baxo garabkaaga joogo miiska raashinka aad isla fadhiisatiin taas aniga waan oggolaan waay qalbigana zaa'id ayuu ii xanuunayaa sidaas ayuu igu sameeyey maalin ayaa waxaan go'aan ku gaaray inaan meeshaan ka cararoon ka baxsado laakiin gacanta ayuu igu dhigay si xunna wuu ii garaacay xitaa eeraan qolkayga isku soo xiri waayey
si fiican ayuu ii jir dilay gabadhayda aad ayaan u xanuunsaday siduu ii garaacayana qolkayga ayuu jiiditaan igu geeyey shayddaani naf ayaa igu xiriiray saa'idna waan u xanuunsada aniga waan kala tuure jaranjarada ayaanu ka dhacay aniga qof xun haddaanahay waan ka carari lahay mise waan dhammaystiri lahay laakiin ambalaasta ayaan ugu wacay isbitaalkana waan geeyey guriga markii lagu soo celiyena sariirta meed camal ayuu iigu saarnaan jiray waana ku xanaanayn jiray aniga qof xun haddaan ahay mar hore ayaan u dhammayn lahay abadan middaas ma samayn kara sababtoo ilmahayga aabbahood way qof xunna aniga miihi ficilkaas kuma kicin laakiin nolosha in la dhaafiya ayuu istaahilaa ilmahaygana qalbigooda inaan ilaaliyo aniga ayay mas-uuliyadda iga saarantaa sababtoo ah aabbahood hadday ogaadaan nin xun inuu yahay iyaga xataa way iga tegaayaan ma doonaay middaas inay dhacdana iliif waa ku baryayaa ilmahayga sirtaan ha u sheegin waan ogahay jamiil wuu soo kacayaa balse xilligoo soo kaco halla gaara ka soka ha sheegin waa ku baryaayaa ilmahayga waxaad ogaataa aabbahood aad iyo aad ayay u jecel yihiin mana rabi xumaantiisa inay ogaadaan anigana ma doonayo firaadkayga in layga wato gabadhayda aniga arrinkan cidaan u sheegaa haba yaraatee ma lahan ilaa adiga runta aad ka sheegayso waan ogahay marka horeba inay fahmaysid iga raali ahaada inaa idin qasaaya ila tahay laakiin ditoreesada waa imaati hay sugta anigaa imaanaaye ditore haddeertaan ii sheeg bal xaaladda aabahayga isbeddel muuqda miyaa imaadayna waa ku baryaa khayr ii sheeg kulley aniga baaritaan waa ku sameeyey balse ilaa haddeertaan wax isbeddela haba yaraatee uma jeedo adiga wax dhaqdhaqaaqa ama se hadala ma ku aragta qofkan dhowr qofood ayaa aragtay isagoo hadlaya soo maahan haddii ay sidaas tahay xaaladdan oo ku sii sugnaado inuu caafimaado ayaa laga yaabaa laakiin rajo muuqata waan leenahay soo maahana ditore ii sheeg bal haa rajo way jirtaa waxaana laga yaabaa xaaladdiisu haddii sidaan sii ahaato inuu caafimaado balse waxaa loo baahan yahay qof mar walba daryeela oo garabkiisa istaaga xaaladdiisana la socda ilaa bunkaaka wuxuu u baahan yahay qof agjooga xaaladdan la qaybsada haddii aad ii ogolaataan xil walba aniga ayaa la joogaayo wax walba waad iiga qaadatay haddana ma waxaa rabtaa aabbe inaad igala wareegtad iliif
ditoore naga raali noqo faamilka xoogaho ayaga ayaa isku mashquulsan sooma haynoo qabanin marka ditoore middaas dhib ma lahan aniga gacanyarahayga ayaan idiin soo dirayaa waana qof aad iyo aad u fiican ayada idin caawinayso bukaankane waxyaaba u baahan yahay ayadaa siinayso hadda ayaan idiin soo diraya waaya ditoore waad mahadsan tahay soo dhow ayaan ku leeyahay okay waayahay waan sii baxay wax walba sidaa rabtiin inay u dhacaan ayaan rajiinaya mahadsanid soo gudub xaqu ma laha aabbahe koome in uu ku jiro oo weliba dadka qaar ay ag taagnaadaan yari adiga sidaada bannaanba waa inaad bannaanka u baxdaa ma maqashid miya aabba sida ay kuula hadashay waxay ku tiri aniga ayaa ku daryeelaya allah allah bal maqal waxa ay ku hadlaysa aabbo yaabaayana qofkan awoobahaaga jamiila si qurux badan ayaad u sawirtay magaciisa inaan kuugu qoro ma rabtaane waayaa qalinkaas ii soo qabo مروة عمران ma fii shay maxaad u baahan tahayna anigu waxaa arkay adii iliifoo ma laabtiis fii shay gelaysid arrintan la yaab miyay kula noqotayna runtii waa aamini waay gabar iyo habarteed oo kale hab isku siiyeyseen ma fii shay maa xishootidna hadalladan micindarradaa goormay joojinaysaana marwa cimraan ilaaha ku caafiya laakiinse gabartaas wixii ku wada hadlaysay inaa ii sheegtid soo ma fiicnina maxaa dhacay ii sheeg maxaa ku waranteen naagta ilifeed waxay maqashay jamiilow qar waaye micnaheega asoo iska hadlaayo haye wuxuuna dhahayay marw cimraan ayaa jaranjarada iga tuurtay middaasoo keliya waaye ha allah allah waanuubaa iliif maqaryaasi firaaday u sheegee may ma u sheegayso ee sideehe dumarnimo ayaan isku fahnay sodohdeedna waa ahay ninkaas in xoogla iigu daraan aniga rabinna waan u sheegay iyadana way i fahantay arrintaasna meesha ayaan kusoo afjarnay iyadana ma hadlayso micnaha wax walba maa u sheegtay ii sheegba inaad kala tagteen maa u sheegtay shil ayuu ahaay kasnayga ma aheen qof xanaaqay ahaa waan u sheegay iyada wax walbo waaye firaad ma u sheegayso maaho may firaad uma sheegayso sababtoo asaga way jeceshaa soo maahan iliif ma doonaysa reerkeeda inuu ka burburo mana sheegaysa arrintaas keliya adiga afkaaga xidho ha isku sheegin waxbo weligaa sirteeda waa qarin jirtay sidoo kale haddana waa qarinaysaa hadda miisfahni maafiish arrintan waa sir dhexdeenna taalo nolosheedanay ku xidhan tahay waayahay bal ka war mudane jamiil hadduu soo kaco wax walbana uu sheego markaas kadibna uu dhaho firaad aniga wiilkayga maaha unug maxaa suu biyana adna maxaa suu biyahay ii sheegbo hala gaaro
hadal badan haan buuxsho maafiish iga aamus maafiish hool ma kuu taalo iiga soo bax bannaanka yaaqay xaaladda aabahaaga iga waran wuu fiican yahay haddartaan dabcan doorka hadalla wanaagsan ayuu dhahay soo maaha insha allah waa rajaynaynaa aabahaaga inuu caafimaado wuuna caafimaadayaa iga raali noqo sababna aad ayaan ugu xumay haddii joolashan aan idin aamin waayo haddaan idin aamin lahaa xilligan waxaanoo dhan ma dhici lahaynin i aaminay liif waxaan rabaa aabbahayga aniga inuu ii caafimaado aniga aabbahayga inuu ii caafimaado ayaan rabaa hooyaday macaan mar walba waxay ii dhihi jirteen waxyaabaha dunida uga adag waxaa ka mid a qof bini'aadan inaad fahanto mar walbana wuxuu ku dhaqaaqaya ma fahmi kartid adigana sabab waan ugu aamini weyso meesha way taale soomaa waxaad diidaysa inaad rajo isgeliso kadibna aabbahaaga uu soo kici waayo horta gurigaan jacayl wax la dhahayoo dhan lagama garanaynin laakiin adinka markaad imaateen kadib runtii wax walba way isbeddeleen xitaa fadhiga qolalka meel waliba oo guriga ka mid a run ahaantii way isbeddeleen ayaan ku dhahay adiga iyo juulishna ma aqaan abaalkiina waxaan aniga ku gudo ihanetin